السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada mar kale iyo barashadeena luqadda Jarmalka ama luqadda Dutchka halkani waa macadka Baasha Academy waxaana maanta casharka idinla socodsiinaya anigoo ah Axmed Maxamuud casharkana maanta qaadanayna wuxuu ku kooban yahay wuxuu quseeyaa shaqada ama waa ereyo dhinaca shaqada quseeya waxaan dhihi karnaa waa cashar shaqada quseeya dhammaan waxaynu keenaynaa insha allah intaanu ka gaarno ereyada shaqada la xiriira dabeedna waxaynu gelinaynaa jumlooyin sidii caadiga noo ahayd waxaan rabaa inaan baraarujiyo erey kastoo aanu halkan ku sheegno aanu halkan ku keenno macnihiisana shaqo kusoo koobno inaanu macnihiisu shaqo ku koobnayn macnayaal kalena loo isticmaali karo laakiin keliyanu inuu ku koobsanayno macnaha maanta casharkeena la xiriira sidoo kale waxaan rabaa qolyaha haysta buugga umfangrekhdojon somalish oo casharada ka raacda inaan u sheego qaybta dambe ee videoga ayaan idinkula wadaagi doonaa bogaga buugga ka midka ah ee aad ka heli kartaan casharkan kelmad kastoo casharkan ka mid iyo weer kasta bogga ay buugga kaga taalo si aad si fudud buugga uga raacataan casharada sidoo kaleeto qolyaha aan buugga haysan ama dadka aan buugga haysanin waxaan rabaa inaan dhahdo joojiya videoga soo qaado qalin iyo buug dabadeedna qoro casharka sababtoo ah dhegeysi waxba laguma barto haddaad buugga haysatid casharka dhegeyso dabadeedna bogaga aad ka heli kartid ee buugga ayaa lagu sheegaya bogagaasi tag casharka ka raaco sidaasna ku qayb haddii aadan buugga haysan qaado qalin iyo buug casharka istaaji qoro si aad kusoo qaybtid kelmaddeena ugu horeysa waa hantiren waxa weeyaan shaqo ama ka shaqayn hantiren shaqo ama ka shaqayn sie hantiert seit Stunden in der Küche sie hantiert seit Stunden in der Küche muddo hal saaca ayay ka shaqaynaysaa kijada muddo hal saaca ayay ka shaqaynaysaa kijada Küche waa kijo inna waa preposition derna waa article laakiin articleka Küche waa d der maaha sababta aynu der uga dhignay waxa weeyaan waxaynu soo qaadanay preposition oo in ah maadaama prepositionkan uu ina siinaya inaan articleka ka dhigano der ayanu waxaynu uga dhiganay der laakiin articleka Küchen waa d kelmadda labaad firken waa shaqo ama ka shaqayn shaqo ka shaqayn inaad wax ka shaqaysid inaad shaqo qabatid macno kalena waa loo isticmaalaa laakiin macnaheeda shaqada ahi waa inaad wax ka shaqaynaysid oo kale shaqo diese Firma firket in mehreren Ländern diese Firma firket in mehreren Ländern shirkaddan waxay ka shaqaysaa wadamo badan shirkaddan waxay ka shaqaysaa firma waa shirkad waa unternehmen shirkaddan waxay ka shaqaysaa wadamo fara badan mitarbeiten shaqo ama ka shaqayn wer hat an diesem Projekt mitgearbeitet wer hat an diesem Projekt mitgearbeitet yaa ka shaqeeyey mashruucan yaa ka soo shaqeeyey arbeiten waa shaqo weliba shaqo si adag aad u qabatay ama qof si adag wuxuu shaqeeyey ayaa loo isticmaalaa arbeiten waa shaqo yacni wax aad si adag u qabatay ama waxaad si adag uga shaqaysay ayaa loo isticmaalaa shaqada caadiga ah inta badan looma isticmaalo hat sich seine Vermögen hart erarbeitet hat sich seine Vermögen hart erarbeitet shaqadii hantidiisa wuxuu ku shaqaystay si adag Vermögen waa hanti ama xoolo dabcan waxaan dhihi karaa waa hanti sababtoo ah xoolo waxaa loo isticmaalaa Vollhaben laakiin Vermögen waa hanti weeyaan marka hat sich sein Vermögen hart erarbeitet si adag ayuu u shaqaystay hantidiisa anarbeiten shaqo ama ka shaqayn anarbeiten shaqo ama ka shaqayn ich arbeite bei der Firma ich arbeite bei der Firma seit einem Jahr an shirkaddan waxaan u shaqeeyaa muddo hal sana ah ama shirkaddan waxaan ka shaqaynayaa muddo hal sana ah shirkaddan waxaan ka shaqaynayaa muddo hal sana ah bearbeiten shaqo ka shaqayn bearbeiten alle Anträge werden innerhalb von 2 Tagen bearbeitet alle Anträge werden innerhalb von 2 Tagen bearbeitet dhammaan codsiyada 2 maalmood gudahood ayaa lagaga shaqaynayaa Anträge waa codsiyo
dhammaan codsiyada 2 maalmood gudahood ayaa lagaga shaqaynayaa. Einarbeiten shaqo ka shaqayn. Einarbeiten shaqo ka shaqayn. Ich hatte gestern einen freien Tag. Shalay waxaan ahaa fasax. Aber heute muss ich die 8 Stunden einarbeiten. Laakiin maanta waa inaan shaqeeyo 8 saacadood. Shalay fasax ayaan ahaa, laakiin maanta waa inaan shaqeeyo 8 saacadood. Einstellen shaqo ama shaqaalaysiin. In qolo la shaqaalaysiiyo ama qof la shaqaalaysiiyo ayaa loo isticmaalaa einstellen. Wir müssen zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Wir müssen zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Waa in aan shaqaalaysiino shaqaale dheeraada. Zusätzlich waa shaqaale dheeraada. Waa inaan shaqaalaysiino shaqaale dheeraada. Werken. Werken waa shaqo. Lebt in seinem Werken Wort und bettelt niemand. Lebt in seinem Werk Wort und bettelt niemand. Wuxuu ku nool yahay shaqadiisa cidnana ma baryo. Wort leben waa ku noolaansho. Werken waa shaqo. Betteltine oo ama bettelin waa baryo. Bettelin way feebka laakiin hadda maadaama aynu direct person isticmaalayno ayaan waxaan ka dhiganay bettelt. Laakiin feebku waa bettelin. Marka bettelt niemand cidna ma baryo. Shaqadiisu ku nool yahay cidnana ma baryo. Beschäftigen shaqo. Ich beschäftigt bei einer Produktionsfirma. Waxaan ka shaqeeyaa ich beschäftigt. Halkaas waxa weeyaan ich beschäftige waan khalday direct person ayaan qoray ich beschäftigt ayaan ka dhigay. Ich beschäftige bei einer Produktionsfirma. Raalli ahada qoraalkaas beschäftigen way ka khaldamay. Ich beschäftigt bei einer Produktionsfirma. Waxaan ka shaqeeyaa shirkad wax soo saar. Maanta halka ayaynu casharkeenu ku joojinaynaa. Waxaan rajeynayaa insha Allah intaanu casharkan ku xigay isugu iman doono in aad casharkan soo qaybi doontaan nabadgelyo iyo caafimaadna aad ku sugnaan doontaan. Waxaan rabaa inaan qolyihii buugga haystay u sheego bogagga ay ka heli karaan casharka. Hantiran wax ka heli kartaan bogga 199aad. Werken bogga umfangrecha Deutschen Soomaalish wax ka heli kartaan 467 waa bogga 467. Mitarbeiter wax ka heli kartaan bogga 264. Arbeiter wax ka heli kartaan bogga 152. Einarbeiten wax ka heli kartaan bogga 24aad. Bearbeiten wax ka heli kartaan bogga 87aad ama bogga 87. Einarbeiten wax ka heli kartaan bogga 135. Einstellen wax ka heli kartaan bogga 24. Werken wax ka heli kartaan bogga 180. bogga 103na waxaa ka heli kartaan beschäftigen. Intana casharkan ku xigay isugu iman doono sida ayaynu